إنا لله وإنا إليه راجعون قف كستو دنيا جود كيس جوجا وودرمين يا جريدا وحابينك حالي تولى كجريو ذا مقالة تشجيع الدولة دجان كالصومالي ذا إثيوبيا وري وينا يرجع داجا أحمد حسن عوكي وكان مذا تيرر كصحافة دا صحفيين تكلدونا كول قبل كتقدر يا تعسيت رايا له دريه الكي قرابدي بعد الصحافة يوم مدى الصومالي ذا وكبحي وري أحمد حسن عوكي وحان إلهي وقبريان إنه كنا فردوسة كورابيو إنا لله وإنا إليه راجعون وحمد الله شان يسوي مورياشا قبل كتقدر كوا هراء يكوا دحى طبعا وحي تعسيو دريان مرحومك الله ونحرسته أحمد حسن عوكي هلدي يا غرابدي بهذا الصوماليات الصحافة ده ومدة الصوماليات أفك الصومالية كوا هذا الشيء لما أنتوا نحن تعسيدين إن أنا جو كوا هذا يافكيجا ياسين عول حاج علي طبعا وحنجعلها هنا نقول تعسيديو لما هلدي يا غرابدي ومدة الصوماليات بعض الصحافة ده إن إلهي سمري ما دمانت من نقصيه راجعون إلهي بين له إلهي بين نقننا وحنو تعسي تيران له ودرنا أنه جواه بعض الصحافة ده قبل كتقدر وري عوكة وكوجريودي تكتيك هبين كحالي إلهي وحنو كبرنا إنه نحرسته قبري سنة وواسعيه عوكة تج لكن وحن وباقية ورباهنتا الصوماليات ملك استوي توكتو إني ودعوا كنقطه إنا لله وإنا إليه راجعون وحمانتا قرنك جمهورية الصومال كبحي يوجد هم بأمة الصوماليات ركن كميدا أركان تورباهنتا صومالي دو أيكو تاجنتاي عوكي ضدك حسها يمعناها يشرفت وسميي أيوها ورباهنتا إن وحرميسنا هنا لهلان كمانك كون إنان إورياشة إمانة الصوماليات أفك الصومالي وكوا رماه هدان عوكا أو كله بدلين إلهي بقرآن كيس كويري كل نفس ذائقة الموت نفول بجيريده ودردمنسا ورنتي آيات سوحي أباهن تاي وكعبر قادشة وآياتها أباهن إن الدول استاجر رنتي مركب قفول بقى قرآن كآخرية وحن رنتي نتوسيسا إن قف بلا آن ككمدة أو إلهي أبورتي oo adduunkan iyo koonkan ku waaraya aanu jireynin oo iska sii noolaanayo intuu doono wariye Axmed Xasan Cawke waxa uu kamid ahaa Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye wariyeyaasha ku suntana sida uu Cabdi Maalik sheegay dhinaca wadaniyada sidoo kale akhlaaqiyadkiisii waxay nooga waramay rogcadaayadii saxaafadda Mijir Qaadi Maxamuud oo ahaa macallimiintiisii innagana isaga macallinkeenii ahaa إلهي نحرستي أجناها كورابية قف كسته أو ما أنت هل كان شوجا معلن كيسيبها إنا لله وإنا إليه راجعون إن واحد ما أنت هل كان سجونمي تعسيده إن وريه وينا عنكها أحمد حسن عوكي وكجيريودي إن ذلك إثيوبيا جارهان مقالة تشجع إن وحا إن بهذا ورباهنته كبحي تير أرق إن عوكي إن waxyaabo badan baa lagu xusuustaa oo ay kamid tahay waqtiyadii sameeyay ama dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya ay galeen waa lagu xusuustaa kasto dunida guudkeeda jooga geerida u dhadhaminaya waxaan maanta tacsidiisa u taaganahay oo u direynaa mid kamid ah rukumada ugu waaweyn tirarka iyo media ama bahda saxaafadda macalinkeena Cawke waxaan leenahay Ilaahay oo naxariisto janna firdawsa ka waraabiyo eelkii qaraabada iyo bahda saxaafadda oo ka mid nahayna samiri iimaan saadiq Ilaahay naga siiyo wayna Ilaahay raajicuun waxaan halkan aad iyo aad ugu tacsiyadeynayaa Axmed Xasan Cawke oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee wadanka Itoobiya wuxuu ahaa mid kamid ah rukunada ugu waaweyn ee saxaafadda guud ahaanba Soomaalida oo ay gabi ahaanba tabi doonaan bulshada saxaafadda ee guud ahaan Soomaalida إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت دمان دليل نكود حكومنا هاي halka uu maray wariye Axmed Xasan Cawke ayaynu dhamaanteen wada maraynaa oo waynu daba soconaa wana lagu kala horeynayaa kulankan aynu maanta isugu nimay warbaahinta gobolka Togdheer waxaynu ugu tacsiyadeynaynaa geeridii ku timi wariye Axmed Xasan Cawke raajicuun waxaan halkan tacsiid tiiraanya looga diraynaa ehelkii asxaabtii qaraabadii iyo guud ahaan dadka afka Soomaaliga ku hadla ee dhageysan jiray ama daawan jiray ama la socon jiray wariyaha rugcadaaga ah ee Axmed Xasan Cawke oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida caasimadeeda waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto jannadii ha ka waraabiyo kullu nafsin daa'iqatul maut wa inna ilayhi turja'un الله هو نحرسته وحن تعسيتي رايلا ودريا قيسكي قرابدي أهلكي
guud ahaanba warbaahinta Soomaaliyeed iyo qaranka Somaliland ka tacsiyadeynaya geeridii naxdinta lahayd ee ku timi wariye Axmed Xasan Cawke oo ahaa wariye ku dayasho mudan, wariye hal abuura, wariye aftahana, wariye ay hormuud u ah horumarka ay warbaahintu gaadho. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan halkan tacsiid tiiraanya looga dirayaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timi wariye Axmed Xasan Cawke. waxaan guud ahaan dadka afka Soomaaliya ku hadla uga tacsiinaya geeridaasi. waxaan leeyahay Ilaahay godka ha u nuuro, Ilaahay ha u naxariisto. aad iyo aad baan uga tacsiinaya geeridaasi. waa geeri naxdin leh. raxiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. anigoo ah suldaanka dadka soo dhalan doona oo ka wakiila ururka saxafiyiinta Somaliland, dhammaan dadkan suldaanka u hay bulshada Burco iyo bulshada reer Somaliland iyo ummadda Soomaaliyeedba waxaan tacsiid tiiraanyo leh u dirayaa dhammaanba eheladii, qaraabadii guri kasta iyo goob kasta oo laga dhageysan jiray wariye Cawke geeridii naxdinta lahayd ee ku timi wariye Axmed Xasan Cawke oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. runtii saxafiyiinta afka Soomaaliga ku hadla iyo ummadda kale ee taqaanay Cawkeba waxaan ka tacsiideynaya geerida ku timi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. marxim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan halka ka tacsiideynaa saxafigii weynaa rugcadaaga ahaa halyeegii warbaahinta isla mar ahaantaana ahaa shakhsi ama saxafi ay ku dhaataan warbaahinta Soomaalidu wax badan ay kaga daydaan. tusaalena uu ahaa warbaahinta ku hadasha afka Soomaaliga meel kasto ay joogaan. Axmed Xasan Cawke waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii jannatul firdaws ka waraabiyo geeyana beer kamida beeraha jannada. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan halkan tacsi tiiraanya uga dirayaa wariye Axmed Xasan Cawke oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Axmed Xasan Cawke wuxuu ka geeriyooday warbaahinta ku hadasha afka Soomaaliga oo dhan. si tiiraanya looga dirayaa wariye Axmed Xasan Cawke oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga ismaamulka dawladda deegaanka Itoobiya. Axmed Xasan Cawke wuxuu ka mid ahaa wariyaashii waxtarka lahaa ee lagu dayay jiray rugcadaaga ahaa. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. kullu nafsin daa'iqatul mawt. halkan waxaan uga tacsi uga dirayaa haliyey hanad haldoor ka geeriyooday ummadda islaamka. Axmed Xasan Cawke wuxuu ahaa haliyey ummadda islaamka ka geeriyooday kamuud. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. kullu nafsin daa'iqatul mawt. maanta waxaan halkan u taaganahay geerida naxdinta leh ee ku timid dadka Soomaaliyeed, dadka reer Somaliland iyo saxaafadda dunida meel kasta joogto iyo inta ku hadasha afka Soomaaligaba. waxaan maanta saxaafadda gobolka Togdheer ay tacsi u diraysaa geerida naxdinta leh ku timi Axmed Xasan Cawke. ilaahi raaji'uun. waxaan tacsi tiiraanya loo diraynaa ehelkii, asxaabtii, qaraabadii iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay wariye Axmed Xasan Cawke. bismillaahi raxmaani raxiim. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. kullu nafsin daa'iqatul mawt. maanta waxaan halkan tacsiid tiiraanya looga dirayaa ehelkii, asxaabtii iyo bahda warbaahinta uu ka baxay wariye Axmed Xasan Cawke oo ku geeriyooday habeenkii xalay magaalada Jigjiga. halkan waxaan tacsiid uga diraynaa suxufigii weynaa ee Soomaaliyeed Axmed Xasan Cawke oo xalay habeenimada xalay ku geeriyooday magaalada Jigjiga. waxaan ka tacsiinaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan iyo bahda warbaahinta uu ka baxay. waxaan leenahay tacsiin ugu dirnaa. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. halkan waxaan tacsiid tiiraanya uga diraynaa wariyihii weynaa ee ka baxay ummadda Soomaaliyeed gabi ahaanteedba. wariye Axmed wuxuu waa wariye mudan in lagu daydo isla markaana alla la dhaho wariyaasha ugu qaalisanaa dalka. raxmaan raxiim. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. kullu nafsin daa'iqatul mawt. runtii waxaa dhacday geeri naxdin leh. waxaan ka tacsiideynaa geerida naxdinta leh ku timi wariye Axmed Xasan Cawke. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan tacsiid tiiraanya u dirayaa Axmed Xasan Cawke oo ahaa haldoorkii saxaafadda. Axmed Maxamed waxaan halkan ka tacsiideynayaa halyeygii qaaliga ahaa ee wada saameeyay ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay ku nooshahay ama dadka afka Soomaaliga ku hadla. Xasan Cawke Axmed Xasan Cawke waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto, jannada ha u furaasho, Ilaahay nabigiisa ha ku xiriiriyo. waxaanu leenahay waa tiir adag oo ka baxay ummadda afka Soomaaliga ku hadasha. waxaana la filayaa in maalmaha soo socda loo soo qaadi doono magaalada Hargeysa isla markaana loogu sameyn doono aas qaran. Khadar Cabdirasaaq Saleebaan, Harwanaag News, magaalada Burco.